جزاك الله خير شيخ. قبر مسلمات waxay leedahay caruurta lagu dhalay masaafada xaalkoodu maxuu yahay nasab miya amise maadaama Soomaalidu ay yaqaanaan masaafo inay ismasaafistaan marka masaafadaas caruurta ku dhashay xaalkooda ka waranay dhahday. جزاك الله خير. jawaabta qulaasadeeda waa aqri doona laakiin qulaasadu waxay tahay caruurtii ku dhalatay masaafo ama qudbasiro waxa lama dhihi karo waa xaraan qadcana culimada muslimiinta afarta madhabood iyo qeyrkood qof yiri waa wacal ma jiro mana banaana in la yiraahdo waa wacal waa xaraan qadcana in wacal la yiraahdo diintana sal kuma laha caruurtaas waa nasab sababtu waxay tahay laba arrimood qofka muslimka waa kala fahmaa diintuna waa naxariis laba qof oo zina ku heshiiday iyo laba qof oo yiraahdeen aan iskuusanno jaahiliin oo waliba waqtigii horeeto waxa dhici jiray 90 kiiloomitir gabar iyo wiilin isla lugeeyaan oo caguhu baxaan oo la daalo oo naftu qabato meel ay ku dhacaan ma waxa dadkaas marka intaas lugeynaa ma xaraana u lugeynaya maya waxay u haystaan in xalaalta wuxuu 90 kiiloomitir uma lugeeyeen hadday xaraam doon yihiin marka waa dad xalaal rabay laakiin dariiqu ka lumay oo jaahilnimo heshay sidaas darteeda maadaama ay xalaal doonayeen jahlina ku dhacay culimada muslimiintu dhammaan waxay nasgareeyeen ilmahaas waa nasab waxa lama dhihi karo diinta sal kuma in waxa la yiraahdo qofka waxa la yiraahdaana asaga ilaahay hortiisa ka jawaabay ha soo haray gabar kasta iyo nin kasta ee ay u cadaato walil aanay shalay isku guursadeen inaan diinta sal ku lahayn waa ajnabi waana xaraan inay is wada joogaan bal inay is arkaan xaraan ayagoon gabadhu xijaabnayn sababta ajnabi kale yihiin mar haddii diintu cadaatay xaydan ba ku wada joogayaan ilaa aayadda quraan fiiriya wama kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim nin mu'min iyo gabar mu'minad uma banaana xalaal uma ahan mar haddii ilaah iyo rasuul amarkoodu uu yimaado oo ilaah iyo rasuul wax amraan inay khiyaar ayagu qaataan oo yiraahdaan alla iyo rasuul miyaan adeecna ma sida kalaan yeela khiyaar ma leh wax ma kala dooro karaan wayna ilaah iyo rasuul adeecaan hadday ogaadeen in nabi maxamed yiri sallallahu alayhi wasallam ayyuma imra'atin nakahat bighayri idni waliha فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل gabar kasta oo guursata waligeeda idankiisa la'aantiis nikaaxeedu waa baadil ma banaananin ilaah rumaysan oo allah ilaahnimo u rumaysan oo rasuulka muxammad sallallahu alayhi wasallam rasuulnimo u rumaysan oo diinka islaamka diin ahaan u rumaysan inuu yiraahdo baadilkan uu ku jooga baadilkaygaasaan iskaga baaqi ahana maya uma banaana labo isma qabaan ha kala leexdeen gabadhu cidaha tirsato nin kale ha guursato waa mid waysan ahayn hadday iyagu israbaan hays guursadeen oo hadda nikaax aan baadil ahayn oo sharci hays guursadeen waliba waxaan inii sheegaya diintu waa naxariis hadday gabadhu doonto inay nin kale guursato ilaa ninkan ma qabee cidda laga raba ilaa ninkan hadduu la dhaqmay ninkan hore hadduusan la dhaqmin cidda ma jirto waxay ka cidda tirsato lama arko ninku ma qabo laakiin hadday wada dhaqmeen waa inay cidda ka tirsato sidii gabar caadi oo la furo kale waa inay cidda u tirsato laakiin hadday ninka laftirkiisa rabto inay guursato wax idda looga baahan hal daqiiqad uma baahna daqiiqada ugu horeyda la isku nikaaxsadooda wada joogay hadday marka ninkii hore guursado cidda uma baahna laakiin nin kale markay guursado cidda laga raba